qofku waxa uu ugu bixinta badan yahay waa wax uu isagu hore u soo waayay oo aanu soo helin. dadka jaadkaas ee wax ay u baahnayeen laga xarimay si deeqsinimo leh oo dawakawarwar la ay u bixiyaan waxaasi maadaama ay garanayaan qaraarka ay leedahay wax waayidu. ama qofkaas sida zaa'idka ah wax kuugu quuraya waxa uu doonayaa inuu naftiisa ugu magdhabo wixii uu hore u soo waayay. laga yaabay qofka sida waalida ah ku jeclaaday inuu doonay inuu ku yiraahdo in badan ayaan ku tahmayay inuu qof ii jeclaado sidaan ku jecelahay. qof kasta oo marka ay dhibi ku haleesho garab ku siiya murugo kama marna. laga yaabaa inuu garanayo qaraarka ay leedahay inuu qofku murugoodo oo aanu helin cid isgarab taagta oo murugtiisa la wadaagta. qof kasta oo wax ku siiya ma ahan hantiile. laga yaabaa inuu si dhab ah u dhaadan yahay xanuunka ay leedahay inuu qofku wax u baahdo oo aanu helin. qof kasta oo madaxa ku salaaxa micnaheedu ma aha inuu walwal iyo walbahaar ka maran yahay. laga yaabaa inuu doonay inuu hab kale Ilaahay u baryo oo isaga oo aamusan oo adiga madaxa ku salaaxaya uu qalbiga ka leeyahay Ilaahayow waa anigas dadka kale warwarka la qaybsanaya ee madaxa u salaaxaya ee anigana adigu madaxa ii salaax oo warwarka igu idaari. noloshaani way adag tahay. qof kastaana waxa uu dhankiisa ula daala dhacayaa dagaal aanay cidina war ka haynin. qosolkaas ilaa gowsaha la qaabinayo waxa ku qarsoon dhaawacyo aanan bogsoonin. muuqaaladaas nimcada ah ee aad arkayso waxaa ka dambeeya waayitaan adhaxjabis ah. xitaa qoraalada jacaylka ahi waa tabid iyo xiise loo qabo mid la jecel yahay oo la sugayo. dadka waxa ay wax ka qoraan waxa ay waayaan in ka badan inta ay wax ka qoraan waxa ay haystaan. ee si dhib yar dadka ku dhaaf oo rafaadkaasi kadid ha ugu sii darin. hana noqon mid dadka ka arka muuqaalkaas guud ee ay muujinayaan. waa walaalkiina Cabdixakiin Axmed oo idinla doonayo guusha labada daarood. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.